cabdulaahi maxamed nuur oo dhawaangal ku ah wasaaradda amniga ee Soomaaliya wuxuu shala qaaday tallaabo saameynteedu dhaafsiisan tahay Soomaalida. Wuxuu ku amray ciidanka nabad sugidda qaranka ee ilaaliya garoonka Aadan Cadde inay amniga ku wareejiyaan booliiska Soomaaliya. Waxay ahayd fariintiisa ugu xooganeyd tan iyo markii uu buuq siyaasadeed ku helay wasaaraddan muhiimka ah. Markii uu soo saaray fariintan oo sida ay ku dhaqan gali kartaa aanay caddayn, waxaa la sheegay in hal mar ay qayla ka yeertay dhanka Xalane maadaama ciidanka nabad sugiddu ilaaliyaan dhammaan jihooyinka looga yimaado garoonka iyo hareerihiisa. Fariinta wasiir Cabdulaahi xitaa waxay saameyn doontaa mucaaradka Soomaaliya maadaama ay degan yihiin xayndaabka laga ilaaliyo garoonka. Inkastoo uu cabdulaahi maxamed nuur isku dayay inuu qoraal Facebook ah ku bedelo warqaddii uu soo saaray, haddana waxaan eegaynaa waxa ka dhalan kara warqaddii shalay ka soo baxday wasaaradda amniga. Nisa iyo garoonka Aadan Cadde iyo hareerihiisu waa halka ugu amniga badan Xamar. Markii aad maqasho nabad sugidda iyo garoonka Aadan Cadde, waxaa laga yaabaa inay kugu soo dhacaan dhowr wiil oo dhar cad ah oo garoonka dhex socota, laakiin dhabtu sidaas waa ka fog tahay. Markii aad u socoto garoonka Aadan Cadde, waddada ka timaada kilomitir 4, midda ka timaada dhanka 21 Oktoobar, iyo midda Madiina Gate ee dhanka Danwadaagaha, iyo dhammaan jihooyinka laga sugo amniga garoonka Aadan Cabdulle, ciidanka degan ee dadka baara dhowr jeerna la qarxiyey iyadoo garoonka loo socdo waa nabad sugid. Haddii ay ciidankaasi saaka xaroodaan, qofna kuma sii hari doono garoonka. Amarka wasiirka amnigu wuxuu u muuqdaa mid aan la turxaan bixin oo fudeed badan iyo rag iska celini ku dheehan tahay ayay leeyihiin dadweynuhu. Ciidankaas hareeraha garoonka daadsan ee nabad sugidda ah waxay guna dheeriya ka helaan waaxda qaramada midoobay ee amniga iyo badqabka ee UNDSS. Sababta ay kaalmada dheeriga u siiyaan waa in xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo safaaradaha caalamiga ah ee aaga garoonka degani inay ku nastaan niisada bannaanka taagan. Markii uu shalay soo baxay amarka wasiirka amniga, waxaa la sheegay in safiirada qaar degdeg wadatashi u bilaabeen, kuwaas oo ka tashanaya waxa dhici kara haddii ay niisa isaga baxdo dhinacyada ay ka joogto garoonka. Qaarkood waxaa la sheegay inay ka fakarayaan inay Nairobi tagaan haddii uu go'aankani dhaqan galo. Sababtuna waa inaanay reer galbeedku aaminka ku qabin booliiska, kuwaas oo koontaroolada ay magaalada Muqdisho ka joogaan ay badi ka soo gudbaan baabuurta qaraxyada sida. Sidoo kale, wakiilada diyaaradaha caalamiga ah ee sida joogtada u taga Soomaaliya ayaa ka walaacsan arrintan. Diyaaradaha Qatar Airways, Turkish Airlines iyo Ethiopian Airlines oo ka mid ah diyaaradaha caalamiga ah ee sida joogtada u yimaada Soomaaliya ayaa laga cabsi qabaa in go'aanka cabdulaahi maxamed nuur uu cabsi ku abuuro oo ay ka fiirsadaan safarrada ay ku tagayaan garoonka Aadan Cadde. Dad badan waxay qabaan in lagu degdegay go'aankan oo ay ku filnayd in isbeddel lagu sameeyo hoggaanka Nisa ee garoonka Aadan Cadde iyadoo aan ciidanka la saarin. Waa haddii la rabo in wax la saxo. Sida muuqata, xiisadda farmaajo ee Rooble waxay si aan fiicnayn u saameynaysaa shaqada hay'adaha dhisan ee dalka. Mana muuqato caqliyad kala shaandhayn karta doodaha danta gaarka ah xambaarsan iyo midda danta qaranka. Maxay kula tahay adiga?